وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي هذه أدبان إذا كسر دويننا دقمة جعل لباح عاصمة جمهورية الصوماليلان وحمارنتي صدحات سحب سميلان نوقص على دقمة برشة الدستور كا يوضن يدا جمهورية الصوماليلان مدن أجاسم مروى أجاسمه وحال كان أن كوجسر دويننا دقمة ومارنتي صدحات شغل سوى عن نوقص عطه إلى مكدد كل دو سجاشن يدور غف أن كتها برهال كان وقعت وعي جرينته برشة الدستور كي وعي جرينته وضن يدا dadkaasi saddexdii cishe la soo dhaafay waxay si kaliya laaba u gudoomeen isla markaana u barteen uguna baraarugeen barnaamijkii ay daadihinaysay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hormuudka ka haydeen dadku waxay halkan maxaan ku raad diyaar noogu ahaayeen ka hor inta aanan iman iyagoo duruufo iyo xaalado kala duwan guryahoodii kaga imanayay marwaagaasi ma halkan waxa ay dadku aan oran karaa waxay ku hubaysmeen oo qaateen oo gaashaan ka dhigteen inay barteen qodobadii aasaasiga u ahaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa ay maxaan ku barteen wadaniyadu waxay tahay iyo waajibaadka iyo xaq ay leeyihiin agaasime shan degmo shan xaafadood ayay ka kooban tahay degmada gacan libaax saddex xaafadood xaafadii saddexaad maanta aanu gabagabeynay maalmaha soo socdana xaafadaha kale insha Allah ayaanu guda gali doonaa waxaan halkan si aad iyo aad u bogaadinayaa laba kooxood koox waa kooxda maamulka ah oo si wacan oo kaliya laaba noola shaqeysay haday yihiin maamulka arrimaha bulshada haday maamulka kale degmada yihiin kooxda labaadan aad u bogaadinaya waxa weeyaan waa dumarka degmada weeyaan dumarka degmada degan waxa ay ragii dheeraadeen baarinta leeg bay dheeraadeen waayo dadka maalin walba noo imanayay iyaga u badnaa dadka maalin walba su'aalaha wax naga weydiinayay iyaga u badnaa dadka dhiirigelinta iyo qiirada soo jeedinayay iyaga u badnaa marwaagaasi waxaan leeyahay dumarku waa laf dhabarta ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland awal la way ahaayeen imikana waxay xaqiijiyeen xaqii ay dalka ku lahaayeen iyo barashadii dastuurka inay u soo baxaan وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي agaasima markaan inta soo dhaafo horta casharadaydu maanta inoo saddex tahay hadaan nahay degmada gacan libaax insha Allah waxaan noo hareynaa waa laba cisho dambe waxaan rajaynayaa halkan waxa fadhiya waa haween gacan libaax waxay dheertay xaafadaha kale ururo daladaha ka dhisan maxay ahayd degmada gacan libaax maadaama daladu ka dhisan yihiin daladaha waxaan ka rajaynayaa inay dalad waliba laba daladood bay ku fadhiyaan labada daladood inay dalad waliba xafiiskeeda tiyo si sameynaysa sida dastuurka loogu sharaxay ay si daadijinayso xaafadihii iyo dhalinyaradii xaafadaha deganaa ay u si daadijinayso ayaan ka rajaynayaa aad aragtaan inay degmada gacan libaax ay u dastuurkeeda u heelan tahay diyaar u tahay imikana maxay hayday ay kusaaga ay maxay hayday mar walba ay taagan u yihiin inay maxay hayday wax walo la qabanayo ay dawladda Soomaaliland ay diyaar inuu yihiin hadaan nahay anagu degmada gacan libaax maamulka iyagu aad iyo aad wax kasta oo aanu maxay hayday la noo keeno diyaar baanu nahay maanta hada tiraado agaasime waxaan nahay musharaxad dumarka war soo dhaweynayna taladaha iyaga waxa laga yaabaa in bari ka maalin ay hareeraha istaagaan insha Allah وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي degmooyinka kala duwan ee gacan libaax ka socda salaanta islaamka ku salaamay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay anigoo dumar in meeshaan joogsaday bal leeyahay dumarkiiba u badano wacyiga qaadanaya dastuurkan iyo barashada wadaniyada iyo waajibaadka ka saaran wasaaradda waxay u qaabilsan tahay markeeda hore oo qaranka u haysaa xiriirinta golayaasha labada gole iyo fidinta dastuurka iyo wadaniyada hadaba anagoo ka duulayna waajibaadkii qaran ee wasaaradda saarnaa ayaa markii wasaaradda shirar badan oo kala duwan agaasimo waaxidada ilaa wasiirka la galay waxa la isla gartay in dadka halka ugu dhow laga gaaray ay tahay in degmooyinka iyo gudiyadii arrimaha bulshada in la gaaro si bulshadii dadkii loo gaarsiiyay dastuurkii
waxa weeyaan 8 degmo oo caasimadu ka kooban tahay baan ugu talagalay inaanu ka fulino 8 degmo 4 degmo hore noo soo dhamaaday kormeerkan indhayn weeyaan sidii macallimiintu casharka u wadaan sidii looga soo qayb galay inay wasaaraddu casharadii socda ay timaado fahansantiina waliba in adinku hawadii qaadanaya casharadiina aad qaadataan aad baan idinku boogaadinaya macalinka da'da yarna aad baan ugu boogaadinaya sida sharafta badan leh markaan soo fadhiistaba igu sheegeen hooyooyinkii iyadoo xilli dambe tahay haddana dadka u samreeya u dhabar adeega wadaniyadii dastuurka inay qaataan inay iyaga yihiin hooyada wax badan baan looga maarmin gurigii baynu caruurtii tii ilaahay siiyay taan ilaahay siin laftirkeedu mid walba qoys baa ku xeeran inaan wadaniyadii dastuurkii guriyaha ka soo bilownay hooyooyinku sida ay noogu qaataan waxay sheegaysaa wacyiga isbedelaya dumarku siday u fahmayaan siyaasadaha dalka lagu hagayo xeerarka iyo dastuurka inaynu baranno inankeena soo baxaya odageeni baa soo baxaya waxay noo soo baxaya walaalkeen baa soo baxaya ta taageeraysa daba taagan waa gabadh in dastuurkii fahansanaato oo ay ninkii iyo inankii iyo inantiiba ku taageerto labadiiba waa loo baahan yahay marka aniga agaasimo guuda inaan meeshan joogsadaba dumar ugu tagana waan jeclahay dhinacna way weakness bay naga taho rag iyo dumarba bulshadu inay gacanta is qabsano oo inta aad joogtaan oo ragoo kalena inoo soo fadhiisatay maanta haleel inoo leeyihiin bulshadeena guul bay u noqon lahayd laakiin wali gaabkii rag halkaynu ka doonaynay qoysaska dhexdoodina way ku yartahay waxbarashadiina way ku yartahay ilaahay raggeena hay noo soo hadeeyay rag iyo dumarku ma kala maarmaane noloshii qurux badneed dadku ku noolaan ilaahay noo soo celiyo waataynu dhamaanteen doonayno dadka wadanka ka hanqal taagay oo dadkaynu doonno dastuurka iyo wadaniyada inaynu ku barbaarina waa dhalinyarta imika social media-na inaga qaadanayo hooyooyinka si gaar ah waxaan ugu dardaarmayaa inaga dadka isgaarsiinta ugu badan oo guryaha inta badan warbixinaha gaarsiinayna dastuurkii wadaniyada qaadno guryaheena gaarsiino ragana waxa la intayda ka maqan fariinta waxaad gaarsiinaysaa meel walba hadii dhakhtar la tagiyo hadii wax la baranayo dumarkiiba u badan kaalintii rag inay noogu soo noqdaan bulshada waanu jecelahay marnaba kuma faraxsanin dumar kaliya inay meel taagnaadaan ama rag kaliya way bulshadii labiyo digmo inuu dhameystiranaay fariimaha dastuurka iyo waajibaadka qaranka iyo waajibaadka qoyskaba rag iyo dumar baynu qaadno waajib baynu ku nahay ka wasaarad ahaan waanu idin soo dhaweynaynaa inaad degmadiini gacan libaax ay noqoto degmo lagu faano oo sida ay muri sheegaysay dalada iyo meel aad ku urursan tihiin leh dumar musharaxiin ah jiro soo bixi doona inagoo raggeena ka tagayn dumarka inaynu garab istaagno oo meesha idin ku yimaadaan baad soo dhaweysaan waliba kuwa u sharaxan golayaasha deegaanka inaynu aad u soo dhaweyno dumarka oo aynu u baahanay dawladaha hoose markay noo fariistaan inaynu baahideena gaarka u sheegan karno nabadgelyada dalka inaynu ka qayb qaadano qof walba halku balaayada ku gaari karo inuu ku gaaro qofka waajibka ka saaran haduu soo sharaxay waa inaad u codeysid markaad cod ka siiso haduu waayo haduu ka helo adiga waxba laga weydiin laakiin hadii uu waayo qofkii ka helay isagu helbe ka waayo waa inaad wacyigiisa haga nabadgelyada u soo jiidi kartaa ayna noqonin musharaxaygi waan doortay sidii uu waayo hadii naanada bulshadii baa khalkhal inaga galaysa dhaxalka inoo haray waa nabadgelyada dhaxalka inoo haray wadankeena dhaxalka inoo haray waxa weeyaan aruurteena ka dambeysay inuu dhalo inaynu dawladda nabadgelyo oo dastuur loo sharci leeyna ku karsano ayaynu u baahanahay marka hooyo walba iyo aabo walba waxa laga rabaa inuu nabadgelyada dalka uu ka qayb qaato wadaniyaduna way nagu abuurantahay inaynu cashar ahaan u qaadano in soo noolayno wadaniyadii qulubteena ku jirtay ayaa laynaga doonayaa si gaar ah dhamaantiin waan idinku mahad celinayaa fariinta dastuurka aynu qaadno dastuurkeenu diinta islaamka kama hor imanayo isagu ku qotoma isaga laga soo dheegay dhaqankeeni buu Soomaalidu ku salaysan yahay wax laga cararo iyo wax laga dido iyo wax diinta ka hor imanaya midna kuma jiraan dadka kale ee ama diinta ku wanaagsan ee xaafadaha idin joogana in la fahansiiyo in dastuurka qaranku uu marka horeba diinta islaamka laga soo dheegay wax dhibaalo oo ku jiraan aanu jirin qof walba inuu xuquuqdiisa barto dastuurku siiyay waa loo baahan yahay waxa xaq lagu leeyahay waxa xaq u leeyahay labadaba inaad garato waka dastuurkii sharcigii dalkeeni